baarlamaanka madaxweynaha galmudug gudoomiye ku-xigeenka faadumo cabdi goonjaaqna waa u mahadcelinaa qofka ugu horeeya oo sheegay gabadha qiimaha iyo xaalaha ugu mahadcelinaa dhammaan ugaasida ay ugu horeeyaan sharafka kala dhan oo fadhiyaan isugu jiraan wasiirada galmudug shacabka galmudug waxaan kala aad ugu mahadcelinayaa haweenka galmudug ee halkaa fadhiya inta cawdadeen taariikh weyn waaye aad noola wada fursinaayo waaye galmudugna taariikhay soo marto maalinba meelay maraysa alxamdulilah maanta meeshaanay taagan agost 14 2006 horta galmudug la aasaasay qofka daari sheegana qofka galmudug waa la aasaasay galmudug markaasaa la aasaasay waxa waaye 14 sano ka hor 9 sano ka hor marka galmudug la dhisay galmudugtii kale la dhisay habeen waqti la soo joogay oo heerka aragtida soo martay waxaa ku xigtay habeen aan joogno Garowe 2 oo aan u malaynayo inay ahayd taariikhda ay soo martay habeenkaas waxaa markhaati iiga ah jenaraal senatarka in heshiiska Garowe 2 ugu daro galmudug inay jirto wixii ay qaadatay habeenkaas waa loo soo joogo waxaa kaloo loo soo joogay 2015 ballaarinta sida uu dastuurka dhahayo Garowe 2 ay dhahaysa galmudug waa jirtaa waana in la ballaariyaa oo isugu keenaa dadka ay ka dhexayso ballaarintiina markaasay dhacdo oo dadka la isugu keenay caawana waxaan u joognaa halkan maamulka cusub noo keenay in la sameeyo dekada hobyo galmudug kaliya ma kalayseen waxay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya ee ka mid tahay galmudug kaliya ummadda Soomaaliyeed ay tahay haddii la dhiso maxaa yeelay howlaha dhibaatada oo haysta iyo dibdhaca haysta ay ka qayb qaadanaya in la fududeeyo oo horey loo dhigo marka reer galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaa ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo ka dhisaan reer galmudug wax kasta oo horumar oo waddankan ummadda Soomaaliyeed loo sameynayo meel kastoo laga sameynayo inay ka qayb qaataan saasay ku imaanaysaa Soomaalinimada aad intaa tahada inuu isbiraad Facebook kusoo dhigay ayaa dhawey uu yidhi inta aan isku mashquulsannahay ma fahmi doono kuwa nagu mashquulsan macnaha ma fahmayna dhibaatada ay nagu hayaan kuwa nagu mashquulsan oona baabi'inaya maxaa yeelay hadalkaas hadal weyn u ahaa isku mashquulsanaanta intaan iska dhaafno aannaga isu muuqano waxna qabsano haddii ilaahay yidhaahdo dekada keliya ma ahay kaabayaasha qaarjiro oo jidadkeediya gabadhyada sidii loo sameyn lahaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii laba qofoo aad u jeclahay oo ah professor Shirwa iyo Cumar Salaad dadka ay hogaaminayeen wadada ay ka dhiseen oo hobyo ku bixiyso siinaya maamulka galmudug ayagaa hadda mas-uuliyadii haya haddaan inaad usii gudubtiin qaranka inaad hogaamisiin waxaad galmudug ka samaysiiya ku xirnaanaysaa galmudug waxaad ka samaysiiya ku xirnaanaysaa marka hadda mas-uuliyadaan haysana hadday qowlba waa haysana waxaa uga duwantihiin dhexdaa u xirateen waxaa dhahdeen galmudug dhisayna dekadeeda dhisayna annagana waa idinku danufeeynaa namarkaca laakiin haddaasay seexatiin annagana waa seexanaynaa xildhibaan saabit iyo xildhibaan fiqi xildhibaannimadooda kasoo tagay iyo kuwa kaloo badan oo meeshaa
galmudug aan toosinaynaa waa jirtaa haddaad toosini waa inaga toosinaya diyaara cadeyna waxaan rajeynaa marka ina ilaahay guri noogu dhamaato allana noo aqbal ducooyinkii ay dhibaasooyinka iyo taqabada inay noo soo jeediyaan haddaan meeshaan soo istaagay waxaan iloobi karinaa jira waxaa waay doorashada wacyigelinteeday ka mid tahay horta waxaa idinkugu bishaarayna hobiyo waxay yeelan doontaa meel codayn oo aad ku codaysiiba xaqina askiiyiin waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynaa intay maalin maalmaha ka mid oo aad u dhow inay heli doonaan xaqi ka maqna oo ahaa codkooda inay dhigtaan oo qofkay nama doontaan ee aan dad beenbeena loo soo doorayo qofka ayaga rabaan inay taasaan ka shaqaynaa igala shaqeeya soomaaliya